السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Qodobo muhiim ah oo soo kordhay ayaynu barnaamijka idinku haynaa. Iiraan oo ku tiri qadar 3 duuliye oo aad naga haysaan nasiya. iyo qadar oo afka furatay oo leh duuliye Iiraan oo aan gacanta ku hayna ma jiraan. xaaladdu faraha ayay ka sii socotaa. maxay samayn doontaa Iiraan? sideese ku ogaatay Iiraan duuliyaal iyada ay diyaaradaheeda wadayay inay markaa qadar hayso oo ay xabsi ugu jiraan. haddaba warar cajiib ah oo soo kordhay caawa xiisada gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. waxaa soo kale barnaamijka aynu ku soo gudbin doonaa weeraro cusub oo ka dhacay mar kale dalka Yemen. xootiga iyo kooxaha ka soo horjeeda oo dagaalo culus ay dhex mareen. wararkii ugu dambeeyay waan idiin hayaa. iyo Iiraan oo markii ugu horeysay ka hadashay xiisada ka soo cusboonaatay koonfurta Lubnaan ugana degtay Israa'iil xiisadaas inay markaa joojiso weerarada ay ku hayso Hezbollah. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Qatar iyo Iiraan oo meel xun ay ka joogto. caawa maxaa dhici doona? wararkan iyo waxa ay ka bilowdeen sheekadan ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa. haddaba marka ugu horeysa wargeyska la yiraahdo Al-Sharqul Awsat ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay Iiraan waxay dalbatay in la sii daayo 3 duuliye. waxayna sheegtay in ay Qatar haysato duuliyayaashaas kadib markii diyaaradahoodii ay ku burbureen dagaal dhacay bishii Maarso xilligii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iiraan oo dhinaca. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sabtida maanta ah dalab rasmi ah ka gudbiyay oo sheegay in la sii daayo 3 duuliye oo ay ogaadeen in lagu qabtay oo ay qabatay Qatar intii lagu jiray dagaalkii bariga dhexe. wakaaladda wararka Iiraan ee Faris oo soo xiganaysa mas-uul sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in ninkaasoo ah madaxa guddiga baaritaanka dadka maqan ee ciidanka qalabka sida Iiraan isagoo sheegay in 3 duuliye oo Iiraaniyiin ah lagu qabtay Qatar iyagoo nool kadib markii diyaaradoodii ayuu yiri oo nooceedu ahaa Sukhoi 24 ay ku burburtay dagaalkii ay la gashay ciidamada Mareykanka. warqad uu u diray guddiga caalamiga ee laanqayrta cas ICRC ayuu mas-uulkan Iiraaniga ah waxa uu ku sheegay in ay ka maqan yihiin 3 duuliye oo uu magacyadoodu warqadda ku xusay. waxaana uu sheegay in muddo 6 bilood ah Qatar ay gacanta ku hayso duuliyaashaasi reer Iiraan. haddaba waxa uu ugu baaqay hay-adda ICRC inay booqato duuliyayaashaas oo ay soo ogaato xaaladooda nololeed iyo midda caafimaad degdegna loo sii daayo oo dalkooda lagu soo celiyo. haddaba militariga Iiraan ayaa bishii hore ku dhawaaqay inay soo heleen meydka duuliyihii Iiraan isaguna ka mid ahaa dadka la la'yahay kaasoo qadariyiintu ay markaa wareejiyeen. waaye marka sheekadana marka soo bilaaba Qatar waxa leeyahay 3 duuliye haysaan nasiib. diyaaradda 4 duuliye 2 diyaaradood ay ahaayeen Sukhoi 24 GPS la'aan ay duulayeen dhulkay ku socdeen waxay soo duqeynayeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Qatar. diyaaradihii marka way dhaceen 2 iyo 2 la socotay 2 duuliye hal duuliye oo dhintay meedkiisa kaliya badda laga helay tiri Qatar kuwii kale waa la laayahay Soomaa. waxaan soo ogaanay tiri Iiraan Qatar inaa 3 duuliye haysaan. gacanta noo soo geliya war ma rabne. hay-adda ICRC na waa la wargeliyay waxa la yiri duuliyaasheenu way nool yihiin Qatarana haysa waana ogaanay hala soo fiiriyo caafimaadkooda hana naloo soo daayo. haddii la soo dayn waayo Qatar ay ka dhaga adeegto maxaa dhacaya? daakum laga dhigayaa Qatar. meeshaan waxay soo dhacay bale markii warkaas barka uu soo baxay. warku dee war sahlan ma aha, war weyn waaye. dadka aad naga hayso noo siidaa haddii kale waa ku qararamsanaya meel loo raaca male. Qatar waray soo saartay idara
haddaba markaan idin tuso warka ay qatar soo saartay haddaba qatar iyaduna goor dhoweyd war degdega aljaziira lagu baahiyey waxaa la yidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waxay si cad u beeninaysaa eedeymaha ku saabsan inay qatar xirtay duuliyayaal reer iiraana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waxaan si cad u beeninaynaa eedeymaha iiraan ka soo yeeray ee ku saabsan in duuliyayaal reer iiraana qatar ay hayso oo ay gacanta ku hayso oo xirtay haddaba kooxaha raadinta iyo samata bixinta qatar ayaa si buuxda u guda galay waajibaadkoodii markii diyaaradaha iiraan ay burbureen kadibna way waayeen marka laga reebo hal qof meydkiisa oo la helay kaasoo ay sheegeen inay soo saareen saddexdii kalena la la'yahay dowladda qatar ayaa la xiriirtay xilligaas dhinaca iiraan si ay isugu dubariddo wareejinta markaa haraaga meydkii lasoo helay iyadoo la raacayo qodobada quseeya sharciga bani aadanimada caalamiga ah dhanka kale qatar waxay sheegtay inay casuumaad u fidisay in markaa ay yimaadaan oo dalkeeda soo booqdaan iiraaniyiinta si faahfaahin looga siiyo howlgalladii raadinta ee ciidanka ee qatar ay ka samaynayeen badda meelihii ay diyaaradda ku burbureen qatar marka afkay kala qaaday waa qaylinaysaa wax le war annaga warduuliyaala adinka idiin dhashay ma hayno diyaaradihiina baddaasay ku dhaceen waa raadinay hal meydaa soo helnay meydkana waataan idiin soo dirnay saddexdan kale aa sheegaysaa waa nool yihiin ma noola ma hayna bay leeyihin badday ku maqan yihiin imaada inrinala arka wixii waa imaan weyseen marka hadda maxaana laku eedaynayaa iiraan meelay ka soo ogaatay lama yaqaanee xogta ay heshay lama yaqaano waxay leedahay waa haysaane gacanta noogu soo shubay odhayaada xaalku marka caawa halkaasuu taaganya waa haysaan iyo ma hayno adiga meel u dhig waa kaas saddex duuliyaa naga maqan laba diyaaradood noocoodii sikhoy 24 oo dhacay bishii maarso markii febraayo dagaalka bilowday maarsay weerar qaadeen badday ku dhaceen nasooyina sii saddexdii ma hayno adikeedii taalla ICRC maxay aadayeen maba haynay leeyihin qatar marka xaajo halkaasay maraysaa marka xaaladdu halkaasay marka maanta joogtaan waay marka sheekadaas wixii ka soo kordha barnaamijyada dambaan idinkula socodsiin doonaa dhanka kale iiraana war laga sugayo maanta israa'iil soo weerar inta qaaday sarkaal sare oo xisbullah ma dirin xisbullah soo caawa lagama baqayo iyaguna inay weerar ku asqaysiiyaan israa'iil adduunkii oo dhan soo ma wada qaylinayo war xabad joojintii hala ilaaliyo soo laguma hayo israa'iil soo difaac ma gelin iiraana marka soo hadasha anida tusoo marka iiraan warkeeda iiraan waxay sheegtay inay tahay in xabad joojinta in la joojiyo weerarada cadowtinimada ah ee xadgudubka israa'iil ay ku hayso koonfurta lubnaan waxaynu u sheegaynaa inay daruuri tahay in weeraradaas cadowtinimada ah la joojiyo oo lagu hayo israa'iil ku hayso koonfurta lubnaan waxaan sidoo kale israa'iil u sheegaynaa inay degdeg uga baxdo goobaha ay ka qabsatay koonfurta lubnaan haddii kale yaa waylak waay waa soo gelaynaa waa dagaalka haddaa waxaan aad samaynaysaan ma maqnin annaga waa idiin jeednaa waa inaad joojisaan koonfurta lubnaan waxa a ka wadaan xabad joojin ma jirtee howlgalladan cadowtinimada aa bilowdeen joojiya maanta waa laisla qaybiyey israa'iil waxay leedahay mas-uuliyiin xisbullah ayaan dilan dowladdii lubnaan waxay leedahay dad shacab oo caruuri ku jirtaa la laayay marka koonfurta lubnaan iyaduna sheekadeedu waa qasan tahay dagaalka yaman xuutiyiinta maalmahan waxay nagta ku hayeen dekad leera almukha oo ku taalla meel ku dhow baabal mandab 75 kilomitr waa dekedaan ka hadlayn dekadii maamulaheedu wuxuu yidhi gabi ahaanba dekadii shaqadii way joojisay khalaas ma shaqaynayso kow lacag 16 milyan oo dollar ahna waa khasaartay wixii meesha yaalo ku gubtay xuutigii waa looga kala cararay dekadii xuuti maxaa u dhiman inuu dekadii aado dhanka kalena waxaa leeyahay meel la yidhaha ma'rib ayuu haddana nagta ka saaray xuutiga caawa ilaa maqribkii marka isagana waxaa leeyahay xudayda iyo meelahaasa isaguna laga duqeeyey marka yamaniyiinta dhexdoodii jugta isku hayaan marka aanida tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay
yeman waxaa ka soconaya duqaymaha xuutiyiinta waxaa sidoo kale la sheegay inay joojiyeen duqaymahaasi shaqadii dekadda almukha khasaaro 16 milyan oo dollar ah ayaa dekadda soo gaaray haddaba maamulaha dekadda almukha ninka la yidhaahdo cabdimalik al-sharci ayaa sheegay goor dhaweyd in nashaadkii iyo shaqadii ka socotay dekadda iyo ganacsigiiba dhammaan ay joogsadeen kadib markii xuutiga weeraradiisa ay markaa baabi'iyeen waxyaabo badan oo shaqadii dekadda la xiriiray waxaana la sheegay khasaaraha maadiga ah ee soo gaaray halkaas khasaaraha halkaa ka dhashay inuu gaarayo sida uu yidhi 16 milyan oo dollar inuu gaarayo iyagaa isbaabi'inaya yeman waa loo tuuray xuutiga meesha uu baabi'inayo nagta ku haya ma kala waayo yemaniyiin kale dekad kale oo yeman leedahayuu jugta ku hayaan ayaguna xuutigay garaacayaan xuutiga awal meelahaasuu ka qaraaban jiray israa'iiluu jugta ku hayay meelahan kale sacuudiga iyo jugta ku hayay hadda niman meeshaana inta kontrakti la soo siiya waxaa la yidhi xuutiga ka saara meesha mana ka saari karaan xuutigii marka iyo ayagiyaa marka evereska dhigaya hadda waa la isgaraacayaa marka xaajadu halkaasay maraysaa waa maqli jirtay labadoodii waa laysku tuuray marka hadda nimankan waa loo taraarixiyey yemaniyiinta jugta isku hayaan hadda dhagaha iska garaacayaan maxaa idinka dhiman drones hoo ay leeyihiin xuutiga le mar nagaamusiiye xuuti maa sidaas ku haraay meeshaan xaaladdu xogtaa wixii warara soo kordha waa isla socon doonaa barnaamijkayga caawanaad khiyaaray waa naga intaa laagareey oo sheergareey barnaamijka fakarkiina aragtidiinana waa muhiim intaan mar kale kulmayno waxaan idin xasuusinayaa barnaamijkii labaad iyo kii koowaad aaday u xiiso badnaa in dadka aan daawan iyaguna inay daawadaan nabadgelyo